Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladaha Hoose ee Xukuumadda Hirshabelle ayaa degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ka furtay kulanka qorshe-hawleedka dib u heshiisiinta beelaha dega degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ee loo sameynayo golaha deegaanka degmadaasi, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo xubno ka kala socday ururada bulshada rayidka degmada Mahadai. Odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada ee ka soo qayb gashay kulankan ayaa waxa ay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Hirshabelle ay ku bogaadiyeen howlaha shaqo ee xilligan ay ka wado degmada Mahadai, iyagoona sidoo kale muujiyay biseyl siyaasadeed oo ku aaddan in ay doonayaan in golo deegaan laga sameeyo degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe, isla markaana baahi weyn ay u qabaan. Waxaana odayaasha sidoo kale ay sheegeen in dib u heshiisiintan ay tahay mid ay u baahnayeen beelaha dega degmada Mahadai iyo deegaanada hoos yimaada. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Warbaahinta Jowhar, Mahadai.